بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برنامجكي كورميركا ورarka oo aanu si wada jiray idin kusoo jeedinayno anigoo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed iyo saaxiibkay Barraa'il Kacase. barnaamijka waxaa ka daawanaysan daawadayaal channelada kale ah Qarash Qoodiyo Kismaayo Cable. qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka waxaa kamid ah qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo lala beegsaday saldhigga oo lala beegsaday taliyaha magaaladaasi gaarigiisana loogu xiray oo uu ka badbaaday orgi dad cunay hadda waa orgiga ariga ahaa oo dad cunay isla magaalada Gaalkacyo xaaf oo dawladda federaalka uga digay arrin ay maagan tahay xaafad kamid ah magaalada Muqdisho hadda magaalada dhan ma waa xaafad kamid ah magaalada Muqdisho oo la iskaga barakacay beesha caalamka oo dawladda federaalka uga digtay arrin ay ka maagan tahay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland qodobadaas iyo wixii kale inoo soo baxa ayaanu idinku kormeeraynaa wararka maantanimo aan ku horeyno qaraxa lagu xidhay gaariga taliyaha waa tahay aad u maasantahay Cabdiraxmaan Afakaadho waa barnaamijkii kormeerka wararka iyo kaftanka daawadayaasha waxaan la wadaagnaa wararkii ugu dambeeyay ee deegaanada Soomaalida barnaamijkan waxay si toos ah daawadayaashu uga daawan karaan channelada kale ah Qarash Qood iyo Kismaayo Cable haddii aan ka horeyno Cabdiraxmaan wararkii ugu dambeeyay magaalada Gaalkacyo qarax baa ka dhacay Gaalkacyo qaraxan waxa gaariga loogu xiray baa leeyahay taliyaha saldhigga waqooyiga magaalada Gaalkacyo aan u nahay magaalada Gaalkacyo laba dhinac meel ciidamo badan laba dhinac oo kala qaybsan tahay maamulada Galmudug iyo Puntland aad iyo aad marka taliyaha waqooyiga Gaalkacyo nin lagu magacaabo Cabdiqani Xaabuun ya gaarigiisa lagu xiray baa leeyahay muddo kadib buu ogaaday baa leeyahay in gaarigiisa uu qarax ku xiran yahay gaariga markaas meesha shaqada ayuu ku aadi rabay kadib markii uu ogaaday gaarigii waa ka degtay xaafadii iyo isaga iyo caruurtiisii ka baxeen baa leeyahay maadaama guriga uu dhex yaala gaariga muddo 15 daqiiqo kadib buu gaarigii waxa la yiri ama qaraxii uu qarxay gaari lagu xiray sidaas daraadeed wax khasaare ah oo ka dhashay ayaa ka caawiyay oo sidee uu ku ogaaday in gaariga qarax ku xiray faahfaahin lagama hayo qaabka lagu ogaaday laakiin warbaahintu waxay qoreen in uu taliyuhu ogaaday in gaarigiisa uu qarax ku xiran yahay ka hor inta uu meesha shaqada ku aadin oo uusan fuulin gaarigii marka wax khasaaraho marka qaraxii ka dhashay ma jira leeydi oo soo gaaray maadaama uu guriga dhex yaalay taliyaha iyo qoyskiisa maadaama markii qaraxa la ogaaday ay guriga ka baxeen taliyaha iyo qoyskiisa marka wax khasaaraha ma jiro 15 daqiiqo kadib markii la ogaaday gurigii ay ka baxeen qoyskii taliyaha iyo qaraxaas qaraxay wax khasaaraha ka dhashayna ay hadmaysan warbaahintu qorin aad iyo aad baan uga xunnahay qaraxaasi uu sigtay alxamdulillah ilaah mahadiina waxay tahay inuu ka badbaaday isagii ciyaalkiisiiba orgiga dadka cunay muxuu yahay isla Gaalkacyo waxaan maleynayaa waa dhaweyto waxaan aad u falanqeynaynay gorgor dad cunay laakiin hadda orgi dad cunay way isqala orgigu ilka kora ma laha hadda ka hor ya sheekan saaka Facebook ku qoray baa anagoo iskuul hoose dhexe joognaa maalinka jimcaha kale saad taqaanay waxa weeye muxaadara la bixin jiray marka laga soo dareero waxa weeye baareedka kale intaan galaas kala galan jimcaha dadka waa loo muxaadarin jiray ciyaal madarista ka yimid ba shaqo ka dhigay magaalada oo dacwada faafiya ya iman jiray ama sheekh wala soo wadi jiray marka muxaadaro jeedin jiray markaasuu wuxuu yiri marka riba marka agtana daaqaysa ayadoo meel lagu muxaadareeyay fadhino markaasuu wuxuu yiri marka awoodda Ilaahay muxuu yiri marka ridaas hadii lagu soo daayo maanta oo ay damacdo inay ku disho iska xilin kartid xoolaha la dhaqdo oo dadka ay dhaqdaan oo caana macaan tahana ariga ugu yar ariga ugu yar geela ka wilooda geela inta arkay Ilaahay baa noo cabiidiyay marka wuxuu yiri ridaas haduu Ilaahay maanta kugu soo imtixaano kugu salido oo in damacdo inay wax ku yeesho naftaga qoysa iska xilin kartid aad iyo aad ilaa wax Ilaahay waday aad iyo aad marka arintan soo xustay marka waxa la yiri Gaalkacyo waa magaalo cilmi badan moogta aad iyo aad oo taariikh badan bay leedahay waa magaalo la dhaho marka Soomaali way ku idashay baa la dhahaa hadda ka hor dhibaatooyin badan baa ka dhacay oo dad Soomaaliyeed walaalaha isku dagaaleen aad iyo aad maantana orgi dad cunaya ka soo baxay waan gartay marka warbixinta waa marka waxay leedahay orgigan magaalada Gaalkacyo iyo ilmo yar oo meel jiifay buu cuntaan ku bilaabay waan gartay waa lagu soo diday oo waa laga riday oo marka hooyadii wiilka dhashay oo sinta saa uga haysa yaa waraysi bixinaysa
oo sheegtay in orgigan oo ka cunay wiilka haye ama ilmaha yar oo ka cunay haye marka waa dhacdooyinka la yaabka leh orgi dad cunaya waxyaabaha la yaabka loo hadda soo baxay weeyaan marka waxaan leenahay ilaahay waxa weeye naga badbaadiyo aniga waxaan daawadayaasha la wadaagaynaa muuqaalka ilaa fool ku taal odhan jiray ninkii odhan jiray Ajax aad iyo aad muuqaalkan la wadaagaynaa tani waa arrin la yaab ku noqotay bulshada gobolka Mudug waxaana markii ugu horeysay magaalada Gaalkacyo lagu arkay neef ari ah oo cunay ilmo yar asagoo hurdaya kaasi oo ku noolaa xarun barakac oo ku taala duleedka magaalada Gaalkacyo waxaana gurmad u fidiyay bulshada halkaas ku sugneed hooyada dhashay wiilkani ayaa warbaahinta u xaqiijisay in wiilkeeda ay ka soo gaartay asagoo cunaya neef ari ah lugaan orgi baa iga cunay meel baa seexsaday meeshii asagii oo jiifaan ka tegay waxaan u imid orgigii cunahaya afkiisaan ka soo fagay lugtiis mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Gaalkacyo oo goobta gaaray ayaa iyaguna arrintaasi ka hadlay baata kaleeta oo saaka nagu cusub oo aanan hadda deegaamadan hadda ka hor ka dhicin ari dadka cunahayaa la arkay anigu yar baa nala tusay oo orgi uu lug ka cunay oo la cararay oo laga reebay waa arrin ayaduna carrada ku cusub xooli dadka way cunayaan waxaa laga yaabaa dadku inuu dadka cunaha hadda ka bacdi ilaahay naga soo gaaro ummadiisa ilaahay baa badbaadin kara okay aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan jeclahay inay daawadayaashu daawadeen kana bogteen orgiga dadka cunay xaaf muxuu sameeyey muxuu dowladda federaalka uga digay xaaf kolba meel unbuu ka baxayo kol waa nin mulacyeyn badan xaaf shalay waxaan lahayn marba meel buu ka baxaa murka dhaha dowladda federaalka si ay u leedahay xaaf waan la heshiinay mu meel ka soo boodi aad iyo aad maalaxaas waxaan ogeyn dowladda inuu ka soo horjeestay kadibna la heshiiyey hay mar kale haddana xalay baa wuxuu la kulmay gudiga doorashooyinka haye oo iyagu diyaarinaya habraaca doorashada say ku dhici lahayd maamul goboleedka galmudug galmudug maahan ma doorashada qaranka waayaba ma tii farmaajo farmaajo male waxaa leh dalka ummadda soomaaliyeed tii hay farmaajada tii farmaajo lagu maagayo soo ma ma laguma maagaynin xasan ba waa laga qaada kursiga isagana waxaa weeye kursigan ba macnaha waxaa weeye la raba in lagu tartamo marka xaaf baa xalay marka wuxuu la golmay guddiga qaranka ee doorashooyinka guddigu marka waxay aruurinayaan talooyin iyo ra'yiga dadweynaha la aruurinayaa doorashada soo socota ku dhacay guddigu maamul kasta wuxuu ka furanaya xafiis haye marka guddiga marka xaaf la kulmay xalay haye marka waxaa la weydiinayay talooyinkooda ku aadan doorasho soo socota say ku dhacayso ma qof iyo cod baa ma doorasho la qabanaya ma muddo korisa loo sameynaya xaaf marka tala ayuu u gudbiyay guddiga doorashooyinka taasi oo ah in muddo korosi meel la iska dhigo oo loo dareero doorasho la qabto markay gaadho sanadka muddo kororsiga may dhacaysaa mise uu ka shakiyey niyahow muddooyinka maxamedtaas way jirtay axsaabta siyaasadda dalkana waxay ka qabeen shaki bay ka qabeen iyo walaac xasan sheekh maxamuud maalod kismaayo wuxuu ka yidhi waxyaaba muxaramadaa jira weye oo loo dhawaan karin meelaha la gelin baa jira waxyaabaha hadda iska daba wareega luuqyada hadduu kolba wuxuu dha mandate baa jira hadduu waqtigu mar xilka haysa uu kaa dhamaado waxa la gudbi kari baa jira wax luuqyo la galgeli ma jirto weli nin Soomaaliya kale heshiis waxa jira mar la saxayo laba taabtaana aad iyo aad madaxweynuhu inuunan ku darsan karin aad iyo aad kuna shuban karin marka madaxweynuhu waxa weeye waa in dadka uu kubadda waxa weeye waa in la soo laado soo dhaxdhigaa shacabka iyo waxa weeye axsaabta aad iyo aad niyow waxaa jira magaalada hadii wax ka dhaco waa laga wada qaxa aad iyo aad ama waa la wada joogaa muqdishona kulli hadda hadii magaalo balaayo looga qaxo qarax nuw mooyaane balaayo looga qaxo looga cararo magaalo ay ka jirta maaya marka bal xaafad ka mid ah magaalada Muqdisho oo kaliya laga qaxay sababta loo qaxay markii dagaalada aadka u socdeen yaa waxa la dhigi jiray Muqdisho oo laga barakacay dadkii hore u barakacay oo kuwa barakacay ay dul degeen yaa la oran jiray waagi dagaalada aadka uga socdeen ciidanka Itoobiya ay galeen todobadii marka warbixinta hadda ciwaanka daawadayaashan la wadaagayno waa xaafad ka mid ah magaalada Muqdisho laga barakacay leeyahay kaligeed waa xaafadaha kale lama qabaan bal igu soo xaafada waxa la dhahaa Kaawa Goday
كاو قدي اه هاي سقاوة قدي ما هو كاو كاو قدي سمو كاو قدي بالله هاي xaafaddan waxaa la yidhi waxay kala badhaa baa la yidhi degmooyinka dharkiinley iyo wadajir ayaa kala badhaa baa la yidhi هاي sababta looga barakacaya marka daawadaasha la wadaagaynaa هاي xaafaddan waxaa ka dilaacay baa la yidhi ciidamo u hubaysan habeeleed waxay geystaan baa la yidhi dil هاي kufsi هاي dhac هاي iyo dhibaatooyin kale كو intaas وبال waa dadkii macnaha oo waxa weeye sharciga islaamka lagu hayo gabcaha inta isdhaaf loo geeyo meelaha lagu xidhi jiray weeyaan kuwan oo kale marka xaafaddana waxaa li dadkeeda hadda way barakacayaan way ka guurayaan ha weliba waxaa kaaga daran cabdiraxmaanow xaafaddan waxaa la yidhi sanadihii u dambeeyey horumar ballaaran bay dhanka deegaanka ka samaysay baa la yidhi aad iyo aad iyadoo horumarkii samaysay baa haddana raggaas budhcad ahaa qaab qabiilo abaabulin ee ciidanka ka dilaacay baa la yidhi may dawladdu dhex degto niyo dawladdu ariyadii waa taagleen haddee waxaa kaaga daran dadka muqdisho markay maxkamadaha ay tagaan baa la yidhi ilaan waa ognahay oo qof baa shaatiga dawladda dadka ku dulmiya qofku markuu cadaalad waayo waxay u cadaalad tagaan baa la yidhi xoogga al-shabaab oo maxkamadooda muqdisho ka furan aadaan baa la yidhi aad iyo aad marka dadkan ma aqaano xagga inay shabaab u tagaan bay hayadaan iyagoo tagaan dhagaan qodobka ugu dambeeya waa beesha caalamka oo dawladda federaalka uga digtay hawl ay maagan tahay inay Jubbaland ka samayso waa qodob aad u weyn Jubbaland waayadan dee dabcan waxay noqotay sooska ama meesha isha u ah wararka Soomaaliya aad iyo aad toosh weyn baa haya wararkeeda waxa weeye waa wararka ugu xiisaha badan oo qalbi aadka Soomaalidu u maqasho nin walba dhigto tagaa wuxuu leeyahay Jubbaland xaaladeeda iyo dawladda federaalka waxa ka soo cusboonaaday iyada miiska saaran aad iyo aad waxaan maqlayay shalay inaad farooloole waxaa lagu haystaa madaxweynaha shirar horaad ka qayb gashay fadhiyadan dambe iska tag isagana meel looma socdo isagana aad ma santahay afgaadho dawladdu maxay maagan tahay no beesha caalamka uga digtay baa leeyahay dawladdu arrin ay la damacsan tahay Jubbaland waxaa jirta xog hore oo daawadaasha usoo gudbinay oo ahayd in maadaama maalin hore waraaq ay soo saartay dawladda leeyahay doorasho ka dhici doonta Jubbaland ay dawladdu damacsan tahay ciidan cusub oo la tababarana ay geysay qaybo kamid ah gobolka Gado oo ay doonayso halka inay doorasho ku qabato doorashada marka waxay rabtaa dawladdu inay soo saarto musharax iyada ay rabto musharaxana marka beesha caalamka shacabka Soomaaliyeed iyo waxa weeye wadamada dariska ay u tusto inuu yahay madaxweynaha Jubbaland fadhigiisuna uu noqdo Gado aad iyo aad waa xog aan helay waxaa laga yaabaa in wax ka khaldanaan karo waxaa laga yaabaa inuu saxna way noqon kartaa aad iyo aad laakiin hadda warbixintii hore la wadaagna daawadayaasha tan baa si xoojinaysa caddayn ah sida macnaha marka ay ku warameen mid kamid ah agaasimayaasha xukuumadda Soomaaliya wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay cabdiraxmaan oo marka mid kamid ah agaasimayaasha wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya yaa waxay u sheegeen warbaahinta in beesha caalamka ay dawladda federaalka uga digtay arrinta ay ka maagan tahay Jubbaland taasi oo ah in degmo kamid ah gobolka Gado hore waxaan sheegnay Garbaharre in la rabo doorasho lagu qabto marka waxay degmo kamid ah gobolka Gado haddii lagu qabto doorasho dawladda federaalka ku qabato iyadoo markaasi diidan ama qudraynaysa doorasho Jubbaland ka dhacday in arrintaasi ay keeni karto isku dhac ama dagaalo sukay aad iyo aad warbixinta waliba faahfaahinteeda waxay leedahay waxaa laga yaabaa bay tiri in beelaha ka soo kala jeeda midda madaxweynaha iyo midda madaxweynaha Jubbaland iyo midda madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya in isku dhac oo dhex maro haddii doorasho lagu qabto Gado dad ku dhow madaxweyne Farmaajo oo beeshiisa ah yeelay warbixintu yaa waxay aad u doonayaan in doorashaasi la qabto oo madaxweyne Farmaajo aad ugu cadaadinayaan oo Gado lagu qabto oo Gado doorasho lagu qabto warbixintu saas bay leedahay marka beesha caalamka uga digtay beesha caalamka marka waxay tiri xalka kaliya ee Jubbaland khilaafka dawladda federaalka la dhaxeeya lagu dhameyn karo ama lagu soo afmeeri karo waa wada hadal in la dhax dhigo maamulka Jubbaland iyo
dowladda federaalka madaxdeeda annaguna sidaan baan uga digaynaa inaynan doorasho meel kale lagu qabanin aad iyo aad waxaanu dowladda caalamka ku raacsannahay ama maxaan ku dhahay beesha caalamka ku raacsannahay in khilaafka Jubbaland iyo khilaaf kasta oo Soomaaliya ka dhaca wada hadal lagu xaliyo wixii khaladana la saxo wixii khaladana la saxo inaysan xal keenin doorasho meel kale hadda lagu qabto maadaama hadda maashi maamul uu ka jiro leh awood iyo ciidan oo xitaa adeegsan karo marka waxay imanaysaa ciidankii dowladda inay isku dhacaan khilaafkii inuu kor isi kaco waxaan ognahay waraaqihii farbadnaa ee soo baxayay wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxayay inay kolba waxa way si kala fogeynaysay dowladda federaalka iyo Jubbaland kolba ay cirka kusii shareereysay xiisada jirtay haddana haddii doorasho ay noqoto inay kasii dari doonto marka wax ugu wanaagsan waa xal in lagu dhameeyo miiska wada hadalka aad iyo aad khilaafkana saas ugu soo gabagabeeyay aad iyo aad badalka casab mahadsan tahay daawada idinkuna aad iyo aad baad mahadsantihiin halka aad naga daawanaysaan waa Kismaayo Cable iyo waliba channelka Qarashi Qod waxa barnaamijkuna uu yahay barnaamijkii kormeerka wararka tan iyo inta barnaamijka xiga isugu imaan doona waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo